boqolaal ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee nabad ilaalinta ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho kuwaas oo ku adeega magaca AMISOM inkastoo ay hore u sii joogeen ciidamada Uganda iyo kuwa Ethiopia waxa warbixin dheeraad oo ku saabsan arrintan noo soo diray magaalada Muqdisho wariyaha noo jooga Cabdi Xafiid Saciimka dalka Burundi ayaa noqday dalkii labaad ee ciidamo u soo dira dalku ay dagaaladu afeeyeen ee Soomaaliya dalka Burundi ayaa dalka Soomaaliya waxa uu u soo diray ilaa iyo askar gaaraysa 400 oo askari si ay uga qayb noqdaan ciidamada AMISOM ee howlgallada ka wada dalka Soomaaliya ciidamada dalka Burundi ayaa markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho waxay markaas sheegeen in iyagu dhexdhexaad ka noqon doonaan siyaasadaha kala duwan ee dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya iyo kooxaha kale ee ka soo horjeeda siyaasadda dawladda ku-meel gaarka Soomaaliya iyo joogitaanka ciidamada Ethiopia dawladda dalka Burundi ayaa markii ay ku soo biireen ciidamada dalka Uganda waxay markaas sheegeen in ay Soomaalidu yihiin kuwa ay markaas si aad isugu wanaagsan yihiin isla markaana ay dabeecad aad u wanaagsan markaas ay ka doonayaan in dadka Soomaaliyeed ay markaas kula dhaqmaan ciidamada dalka Burundi ayaa markii ay Muqdisho yimaadeen waxa ay markaas digeen laba xarumood oo ah xaruntii weyneed ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Gahayr iyo saldhigga galbeed ee degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho ciidamada dalka Burundi walow ay sheegeen in ay howlgaladoodu ay markaas ahaan doonaan kuwa iyagu ku eg xarumaha ay joogaan oo ay markaas waxyaabo kala duwan oo dawo marka ay ku jirto ay ka siin doonaan dadka Soomaaliyeed ayaa haddana intii ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho waxa markaa ay la kulmeen qarax ismiidaamin ahaa oo markaas u geystay nin naftii hore ahaa oo isagu isticmaalay gaari bamgareysan oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo uu la galay albaabka weyn ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo halkaas xarun u ahayd ciidamada dalka Burundi waxaana halkaas ku geeriyooday hal askari oo ka tirsan ciidamada dalka Burundi iyadoo qarax markaas uu geystay qasaare kale oo dhaawacyo oo dad rayid oo halkaas marayay Soomaaliyeed soo gaaray dalka Burundi ayaa waxa uu markaa uu noqday dalkii labaad ee ciidamo u soo dira dalka Soomaaliya iyadoo ay markaas ka sii horeeyeen dawladda dalka Uganda oo askar gaaraysa ilaa iyo 1800 oo askar markaa ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho midowga Afrika ayaa isagu waxa uu ka hor ansixiyay in ciidamo nabad ilaalin oo gaaraya ilaa 8,000 oo askari loo soo diro dalka ay dagaaladu afeeyeen ee Soomaaliya waxaana taasi durba ka jawaabay dalka Uganda oo iyagu markaas ilaa iyo ciidamo 1,800 askar gaaraysa u soo diray dalka Soomaaliya iyagoo fariisumo kala duwan ka dhigtay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyo airportka caalamiga waxaana markaas ku soo xigay dawladda dalka Burundi oo si tijaabaha imika u keentay 400 askari oo ay markaas sheegeen inay yihiin kuwo tijaaba hadii ciidamada midowga Afrika la soo dhameystiranayo markaas diyaar u yihiin inay gabiyaanba markaas soo dhameystaan ciidamadaasi tiraad u fara badan oo kalena ay markaas ku soo biirin doonaan ciidamada dalka Burundi ayaa waxay markaas sheegeen in qasaarahaasi dhimashada halka askari ka soo gaartay ahayd mid si aad looga xumaado iyagoo sheegay in iyagu aysan markaas wax siyaasada shaqo ku lahayn marka laga soo reebo inay markaas taageerayaan dawladda ku meel gaarka oo fariisimo markaas iyagu ku leh magaalada Muqdisho isla markaana sheegay inay ciidamada dawladda ku meel gaarka ay markaas dhanka tababarka iyagu ay siin doonaan waxaana ciidamada dalka Burundi arimaha kaliya imika markaas laga tilmaami karo ay u qabtaan shacabka Soomaaliyeed ee tahay in markaas dawo ay siiyaan dad aad u tiro yar oo iyagu ugu taga xarumaha ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho gaar ahaan jaamacadda Muqdisho waxaana markaas ay sheegeen inay iyagu had iyo jeer ay markaas diyaar u yihiin in dadka Soomaaliyeed ay markaas noqdaan kuwa iyagu dhanka nabadda u ololeeya isla markaana iyagu aysan wax dhiba markaas ka geysan doonin in ay weeraraan kooxaha ka soo horjeeda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ma jirin inay markaas wax jawaaba oo markaas rasaas ay ka bixiyeen markii qarax halkaas lagu la beegsaday iyagoo markaas si jiraayad ku qabtay xaruntooda isla markaana sheegay in weerarka uu ahaa mid dandaansi ah isla markaana ay si aad ugu xunyiin shacabka Soomaaliyeed ay markaas ka codsanayaan in arrintaasi aan mar kale markaas lagu kicin isla markaana la iska qabto dadka howlgalladaasi iyagu fuliya wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda dalka Burundi oo lagu magacaabo German Nyankana ayaa waxa uu toddobaadkii inuu ka soo gudbinay soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana wasiirku oo shir jiraayad ku qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho waxaana shirkaasi jiraayad uu kaga hadlay arrimaha ciidamada AMISOM iyo kuwa dalka Burundi ee jooga magaalada Muqdisho
waxa uu wax laga xumaado wasiirku uu ku tilmaamay weerarkii xoogaga al-shabaab ay sheegteen ay ku soo qaadeen xarunta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay degan yihiin ciidamada dalkaasi Burundi halkaasi oo khasaare dhimasho ay ka soo gaartay mid ka mid ah askarta ciidamada dalkaasi Burundi wasiirka gaashaandhigga ee dalka Burundi Nyankana ayaa waxa uu sheegay in dalka Soomaaliyeed ay markaasi u yimaadeen in ay taagaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana si nabad markaasi ay tahay arintoodu in iyagu markaasi loo arko ma aha in aynu dalka Soomaaliya u nimid in aynu layno shacabka Soomaaliyeed isla markaana aynu markaa taageerno labada kooxo ee markaa isdiidan laakiin ujeedadeena waxa ay markaa tahay in aynu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqno in ay nabad qaataan ayaa uu yiri waxa uu sidoo kale wasiirku uu shaaca ka qaaday in uu taageerayo wadahadallada nabadeed ee dalka Djibouti dhawaantan markaasi uga furmay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo kooxaha markaasi ka soo horjeeda siyaasadda ee dalka dibadiisa iyagoo ku dhaqan waxaana uu sheegay in shirkaasi uu noqon karo mid dhammaanba markaasi soo ilaya is-afgaranwaaga markaasi ka dhex jira dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo kooxaha ka soo horjeeda isagoo sheegay in arrinta markaasi lagu xalliyo wadahadal wasiirka ayaa waxa uu sheegay in khilaafka Soomaaliya midka kaliya ee markaasi lagu dhameyn karo uu yahay in la wada hadlo isla markaana xaaladda markaasi lagu soo rogo mid nabadeed wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu markaa uu sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in ciidamo kale ay markaasi dheeraada u soo dirto dalka Soomaaliya waase haddii buu yiri in ciidamada Amisom ay iyagu markaasi soo dhameystiraan tiradii ciidamo ee 8,000 ee gaaraysay ee markaasi loo ballan qaaday si kastoo haddaba booqashada wasiirka gaashaandhigga ee dalka Burundi uu ku yimid dalka Soomaaliya ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee wasiir gaashaandhig oo ka socda ciidamada Amisom uu ku yimaado dalka Soomaaliya tan markii ciidamadaasi la keenay gudaha dalkani Cabdulxafiis Ciimka barnaamijka toddobaadka ee Geeska Afrika TV-ga warsan magaalada Muqdisho